Salaamullah saaxiibayaal ku soo dhawaada kanaalka Arad Clicksom oo aad uga barateen inuu idiin soo gudbiyo muuqaalo ku saabsan technology oo xiiso badan. Magacaygu waa Master Click. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida aad u dhileedi karto qof Facebookisa. Laga yaabaa qofka inuu ku dhibayay marka sidee loo dhileedaa ayuu maanta muuqaalkeena ku saabsan yahay. Anagoo ku eedan doono qofka inuu yahay ilmo yar. Marka intaan muuqaalka u guda galin waxaan ka codsanayaa inaad cimaamada ku tuurto kanaalka oo subscribe saarto sidoo kalena gambaleelka aad furto sida kugu soo dhaco muuqaal kasta oo aan soo dhigno. Marka koowaad waxaan soo furanaynaa Facebook waxaana rabaa inaan idin tuso qofkii aan rabay inaan Facebook ka xiro. Marka Facebook soo gasho halkaas kale ku qoran tahay search ayaan ku dhufanaynaa. kadib marka ku dhufano meesha search-ka ah ayaan ku qoraynaa qofkii aan rabay inaan Facebook ka xirno. marka halkan aan ku qoraynaa Right Clicksom waa kaas meesha kaaga muuqdo. marka account-gan waa account-iga labaad waxaana rabaa inaan idinku tuso si sample ahaan ah. marka account-gan ayaan rabaa inaan idinku tuso sida loo xiro qof Facebook-giisa. marka waan iskaga baxaynaa waxaana markaad rabto inaad ka xirto qof Facebook-giisa waxaad u baahan tahay link-yaas oo aad ku xiri karto iyo qoraalkaas hoos kaaga muuqdo oo ah caddeyntii. marka link-gan wuxuu noo sahlayaa inaan xirno qof Facebook-giisa. qoraalkan hoos kaaga muuqdana waxa weeye wuxuu caddeynayaa in uu yahay qofkaas cunug yar. marka waxaan ku eedeynaynaa qofka inuu yahay cunug yar oo Facebook weli uu gaarin. marka sifo looga xiro marka qoraalka ayaan copy dhahaynaa waan ka baxaynaa. marka browser-ka rabto ayaa soo furanaysaa. marka aniga hadda Chrome ayaan iska isticmaalayaa. halkan ayaan paste ku leenahay search bar-ga. kadib go online waxaa noo soo bixi doonto meeshan halkaas aad aragto URL-ka ku qoran tahay halkaas ayaa laga rabaa link-ya qofka aad rabto inaad ka xirto Facebook-giisa. marka meeshaas hadda kaaga muuqdo meesha u horeyso halkaas ayaan link ku paste garan doonaa. marka qofka Facebook-giisa ayaan tegaynaa. marka aan tagno meesha 3 dhibic ayaan ku dhufanaynaa. kadib link-giisa ayaan copy-naynaa waan iskaga baxaynaa. marka waxaan ku laabanaynaa meeshani kadib halkan ayaan paste ku leenahay link-kii. marka haddana meeshan labaad u imow waxaa la rabaa full name magaca ugu qoran Facebook qofka aad rabto inaad ka xirto. marka magaciisa ayaa inta ku qoraysaa Right Clicksom. magaca oo dhammaystiran ayaa la rabaa inaad inta ku qorto. haddii hal xarf ka khaldaha process-ka si dhammaystiran looma sameynayo. marka intaas marka aad sameyso waxaad imaan doonaa haddana step saddexaad ayaan imanaynaa. meeshan actual age of the child anaga hadda ruuxa waxaan ku eedeynaa inuu ciyaal yahay waxaan rabnaa in laga xiro Facebook-ga. marka waxaan ku eedeynaa qofka inuu ka yar yahay 9 sano. sifo looga xiro Facebook-ga waxaan ku andaconaynaa inuu qofkaas uu gaarin Facebook isticmaalkiisa. marka waxaan leenahay ka xir shirkadda Facebook qofkan. marka 9 sano halka less than 9 years ayaa ka dhigaysaa. meesha haddana aad ay ku qoran tahay waxaan ku paste garaynaa qoraalkii hadda aad arkayseen ayaan ku paste garaynaa. marka waan ka baxaynaa halkan qoraalka ayaan soo koobisanaynaa. qoraalkana waxaan idinku reebayaa dhanka description-ka. linkiga qoraalka halkaas ayaad ka heli kartaan halkaas ka koobiso. kadib intaan imaano halkan aad ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa. paste ayaan ku leenahay qoraalka aan soo qornay hoos ayaa u soconaysaa. marka hoos u socoto waxaad tegaysaa meesha hoose. meesha hoose ayaan tegaynaa. waxaan meeshan berigii hore inta waxaa jaari jirtay waxa la email ayaa ku qoran jirtay laakiin hadda email-kii ma laha. marka halkaas send ayaan ku dhufanaynaa. laakiin hadda aniga send ma ku dhufanayo sababtoo ah account-kan waa account-igayga waan isticmaalaa. marka si sample ahaan ayaan idinku tusay. marka report-ka send aad dhahdo Facebook team-ka way review garanayaan. kadib waxaa lagu soo dirayaa jawaabta in ruuxaas Facebook laga xiray iyo in kale. marka qaabkan waa qaab aad iyo aad u fudud waad samayn kartaa haddii aad muuqaalkan daawanayso hadda.
sidoo kale ha iloobin inaad kanaalka subscribe saarto muuqaallo kuwan ka xiiso badan ayaan soo gelin doonaa mar dhow. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.